جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد محمود سيلانيو wuxuu tacsi u dirayaa 4 muwaadin oo xalay roobabkii ka daayay gobolka Togdheer burco ku geeriyooday oo Ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno firdawsa ka waraabiyo ehelkoodii qaraabadoodii iyo qoysaskoodii iyo gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu samariyay imaan ka siiyo waxa kale oo madaxweynuhu uu Ilaahay caafimaad degdeg uga baryayaa 3 muwaadin oo iyagu ay ku soo gaadheen xalay roobabkaas maadaama ay waqti roobaadkii ilaahayna alxamdulillah tahay inuu Ilaahay ugu mahadnaqayno waxaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogto aanu u sheegaynaa inay dadku feejignaadaan oo marka ay daadarkaan ama roob ballaaran uu jiro ama daadada ay socdaan ay ka feejignaadaan oo naftooda ay daryeelaan ciidamada maxaan ku raadayay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jooga meelaha dooxyada daadadku ka socdana waxay la farayaa in aanay cidna sii deynin ilaa inta ay hubinayaan daadkaasu inuu yahay daadaan maxaan ku raadayay waxyeello u geysan karin muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland